kooxdan waxay dawladaha adduunka qaarkood u yaqaanaan argagixisada internetka. booliiska caalamiga ee Interpolna waxba way ka qaban kari waayeen. si taalamida waxay dad badan oo adduunka ku nool u yaqaanaan inay yihiin koox dhowrta xuquuqda dadka, waana kooxda Anonymous. kooxdan waxay ka shaqaysaa jabsiga amaba haarkinka, waxaana kooxdan la arkay sanadii 2003 waxaanay ka soo muuqdeen website-ka 4chan. kooxdan waxa lagu tixgeliyaa inay tahay koox qowlaysataa kana dhex shaqaysata internetka, waxaanay awood u yeesheen inay jabsadaan bogagga dawladaha caalamka qaarkood. sidoo kale waxay jabsadeen kombiyuutarada shirkadaha ilaalada amaba cyber security, waxaanay caan ku yihiin oo ay xidhaan wejigan hortiina ka muuqda. waxaana markii ugu horreysay uu ka soo muuqday wejigani filim lagu magacaabo V4 Vendetta soona baxay sanadii 2005. waxaanay sheegtaan kooxdan inay difaacaan xuquuqda dadka dhibaataysan, waana ururka ay soo qaban kari waayeen dawladaha waaweyn. sidoo kale waa ururka ugu jabsiga badan adduunka, mana aha urur si toosa u kulma, ismana yaqaanaan xubnaha ururkan. waxayna burburiyeen website-yo badan. markii ugu horreysay waxay weerareen ab la odhan jiray Habbo ahaana abbara bulsheed. sidoo kale waxay weerareen shirkadda Sony sanadii 2011, waxayna u diideen dadka isticmaala PlayStation 3 inay wax ka beddelaan bayaanadooda. waxayna weerarkii ay ku soo qaadeen ay ku haysteen muddo 23 cisho. waxayna Sony shaacisay inay khasaaraha ka soo gaadhay ay ahayd 171 milyan. bishii Oktoobar isla sanadka waxa ay soo bandhigtay mashruuca internetka madow, waxayna burburisay 40 website oo ahaa kuwa lagaga ganacsado dadka kuna dhex yaalay internetka madow. kumanay koobnayn intaa ee waxa ay soo bandhigtay xogo ku saabsan website-yo kale. sidoo kale mid ka mid ah website-yada WikiLeaks oo laga lahaa Sweden ayaa waxa uu faafiyay siraha dawladda Mareykanka, waxayna dawladda Mareykanku ku cadaadisay inay shirkadaha PayPal, Visa iyo Mastercard ay kala noqdaan hantidii ay ku maalgeliyeen website-ka. wixii intaa ka dambeeyay waxa soo gashay kooxdan isla maalin kaliya ayay cadaadis ku saareen PayPal iyo Visa iyo Mastercard, iyagoo jabsanaya bogagga ay ku lahaayeen webka. hantidii kaga jirtay dadkuna way shaqayn weyday. muddo kadib waxay shaacisay khasaaraha ay kala kulantay kooxdan shirkadda PayPal, waxayna ku sheegtay ilaa 5 milyan iyo half milyan doolarka Mareykanka. 7 bishii Abriil sanadii 2013 waxay weerareen website-yada caafimaadka u adeegida dadka iyo ammaanka ee Israa'iil, iyagoo isku dayay inay internetka ka jaraan gabi ahaanba dalka, weliba iyagoo isu muujinaya inay garab siinayaan shacabka Falastiin ee ay dawladdaasi dhibaataysay. waxaanay dawladda gumaysigu sheegtay inay ku qiimaysay khasaaraha ka soo gaadhay ilaa 3 milyan oo dollar. sidoo kale sanadii 2012 waxay ogaadeen kooxdani inay shacabka Tunis ay dawladdu kala socoto dhaqdhaqaaqyadooda internetka, waxaanay ka soo xadeen qaar ka mid ah adeegyadii internetka London, waxaanay uga sameeyeen shabakad internet oo nadiif ah, dabagalna aan lagu samayn karin. maalmo kadib waxay isku qaseen dalka, xitaa waxa ay xadeen xogihii dawladda iyo faylashii khaaska u ahaa, waxayna ku dhex tahriibiyeen internetka. si taalamida waxa jiro xogo ay u soo gudbiyaan ciidamada booliiska, sida dadka mas'uulka ka ah website-yada ka ganacsada daroogooyinka iyo dadka, iyagoo dadka ka dambeeya website-yada u gudbiya ciidamada si ay u soo xidhxidhaan. ma kula tahay kooxdani inay tahay koox u dagaalanta xuquuqda dadka,
nala wadaag faalladaada.